sidaan wada ognahay 1960 ilaa sanadkan aynu ku jirno waxaa dalka soo maray 9 madaxweyne oo habab kala duwan ku yimid kursiga sida doorasho cod iyo qof ah afgembi iyo inay xilwaano soo doorteen. aadan cadde wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu ku dhashay Xaradheere oo ka tirsan gobolka Mudug. Siyaad Bare wuxuu ku dhashay Garbahaare oo ka tirsan gobolka Gedo. Cali Mahdi wuxuu ku dhashay tuulada Cad Abuul oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiqaasim wuxuu ku dhashay Dhuusamareeb oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku dhashay Gaalkacyo oo ka tirsan gobolka Mudug. Sheekh Shariif wuxuu ku dhashay Mahadaay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xasan Sheekh wuxuu ku dhashay Jallaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Madaxweyne Farmaajo oo haatan xilka hayan wuxuu ku dhashay magaalada caasimadda ee Muqdisho waana madaxweynaha kaliya ee Muqdisho ku dhashay. Cabdiqaasim waa shakhsiga kaliya ee golaha wasiirada xilal kala duwan ka soo qabtay isla markaana dalka madaxweyne ka noqday sanadka markuu ahaa 2000 ilaa 2004 wuxuuna dowladii gacan ka soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wuxuuna ahaa wasiirkii ugu daadayra burburkii dalka kadib. waa madaxweynaha kaliya asigoo xilka haya dowladda Itoobiya si cad uga eedeeyay inay faragelin ku hayso dalka. Cali Mahdi wuxuu 1969 ku biiray baarlamaanka Soomaaliya asigoo kolkaasi noqday xildhibaanka ugu daadayar ee ka tirsanaa golaha baarlamaanka. wuxuuna xilka madaxweynenimo haleelay 1991 asigoo durbo wajahay dood iyo dagaalo lagu diidan yahay madaxweynenimadiisa wuxuuna dagaal qaraar kala kulmay Generaal Caydiid. Cali Mahdi wuxuu xilkiisa ku ekaa 1995 waxaana Caydiid oo xilkaasi ku haystay in la dilay 1996 ilaa laga soo gaaro sanadkii 2000. kursiga madaxweynenimo wuxuu ahaa mid booreystay oo aan inna ku fadhiisan. Siyaad Bare iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake waxay dhasheen labadooduba sanadka markuu ahaa 1919. Siyaad Bare iyo Cabdullaahi Yuusuf waa labada kaliya heer ka gaaray arrimaha ciidanimo. Siyaad Bare wuxuu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria asigoo jira 75 sano halka Cabdullaahi Yuusuf uu ku geeriyooday magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waliba asigoo jira 78 sano. wuxuu sidoo kale aadan cadde ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya asigoo jira 99 sano halka Cabdirashiid Cali Sharmaake uu yahay madaxweynaha kaliya ee la dilay. waxaana la dilay 15 Oktoobar 1969 asigoo ah 50 jir. ahaan ma jiro madaxweyne laba jeer la doortay. Siyaad Bare waa gooni oo uu ka duwan yahay dhamaantood wuxuu kursiga ku fadhiyay 21 sano.